maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kalsooni weyn ku qaba macallin Zinedine Zidane in kooxda United-ka uu geen doono xidigaha Marco Asensio, Antoine Griezmann iyo Mauro Icardi. waxaana maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United durbadiiba ay macallin Zinedine Zidane u aqoonsadeen inuu yahay bedelka rasmiga ee Jose Mourinho, ayadoo la qorsheynayay in Jose Mourinho uu isaga dhaqaaqo stadia Old Trafford ee kooxda Manchester United. Zinedine Zidane ayaana dhawaan sheegay inuu diyaar u yahay hogaanka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, asagoo sheegay in isbedel xoogan uu ku soo rigi doono kooxda kubadda cagta Manchester United oo dib ugu soo celin doono wadadii guulaha ee lagu yaqaanay kooxda kubadda cagta Manchester United. Jose Mourinho ayaa ku guuldareystay dalabka ku aadan xidiga reer Argentine ee Mauro Icardi, maadaama Inter Milan ay ku qiimeynayso adduun lacageed gaaraya 110 milyan oo lacagta Euro-ga u dhiganta 98 milyan oo lacagta banka dollar ahaan u dhiganta 128 milyan. waxaana maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ay u muuqan doonaan kuwa gabi ahaanba iska iloobi doona riyada ku aadan Mauro Icardi. لاعبينta kale Antoine Griezmann iyo Marco Asensio ayaa ayna la leeyahay Jose Mourinho waxa uu doonayaa inuu geeyo stadia kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana labada ciyaaryahanba ay xuseen inay ku qanacsan yihiin joogista kooxahooda Real Madrid iyo Atletico Madrid. ciyaaraanka kooxda kubadda cagta ee Juventus Mario Mandzukic ayaa waxa uu leeyahay in badan waan ku qanacsanahay joogista kooxda Juventus, ayadoo warbaahinada wadankaasi Talyaaniga ay dhawaan ay shaaca ka qaadeen in Mario Mandzukic loo gacan gelin doono mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. laacibkan u dhashay wadankaasi Kroatka ee Mario Mandzukic ayaa yiri waxaan ku faraxsanahay waqtiga wacan aan la qaadanayo kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus, waxaan rajeynayaa sanado aad u fara badan inaan ka sii dhex muuqan doono kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. wakiilka ciyaaryahankan ayaa dhinaca kale aad u difaacaya asagoo sheegay in Mandzukic uu yahay ciyaaryahan si weyn u jecel mustaqbal ahaan in waayihiisa ciyaareedba uu hubiyo kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. qaar ka mid ah xubnaha kooxda kubadda cagta Juventus ayaa u arkaya ciyaaryahankan Mario Mandzukic inuu yahay laacib dhaxalgal u ah kooxda kubadda cagta Juventus in sinaba aysan kaga maarmin kooxdaasi, maadaama Mandzukic uu beeniyay wararka sheegaya inuu xiriir la sameeyay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalada Turkiga iyo horyaalka wadankaasi Ingiriiska. waxaana ciyaaryahanka uu leeyahay muddo aad u fara badan ayaan rajeynayaa inaan ka sii dhex muuqdo horyaalka wadanka Talyaaniga, gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus. kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa markaa soo bandhigtay adduun lacageed gaariga 60 milyan oo lacagta ganiga inay kula soo wareegaan laacibka kooxda Fiorentina ee Federico Chiesa. لاعبكان كتسان كوحدة كوبادة عكتا فيورنتينا ayaana bandhig wacan oo u muujiyo kooxda kubadda cagta Fiorentina, asagoo ciyaaryahankan markaa la sheegay inuu yahay laacib bartilmaameed u ah qaar kamid ah kooxaha ugu awooda badan ee tartamada kala duwan ee qaaradda Yuruba. Federico Chiesa ayaana markaa la sheegay inuu aad ugu qancay dalabyada ka soo gaaraya kooxaha Juventus, Napoli, Inter, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. ciyaaryahankan ayaa waxa uu dhashay 25 Oktoobar 1997 waa 20 jir, waxaana uu ku dhashay Genoa ee wadankaasi Talyaaniga. Federico Chiesa ayaa waxa uu kamid yahay ciyaartoyda da'da yar ee reer Talyaani aadka u xiisaaniyay inay ka soo dhex muuqdaan kooxaha ku xifaaltamaya horyaalka Ingiriiska. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wali waxa uu ku rajoogaa qaabkii Barca ay u heli lahayd xidiga Harry Kane ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. لاعبكان كتسان كوحدة كوبادة عكتا ee Tottenham Harry Kane ayaana markaa waxa uu bartilmaameed u noqonayaa kooxda labaad ee ka dhisan horyaalka Spain, ayadoo hore لاعبكان uu soo dalbaday madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez. Harry Kane ayaana isku qancinaya inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta Tottenham garoonkeeda asagoo diiday dalabyada ka soo gaaraya horyaalka Spain. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaya inuu iska fasaxo ciyaaraanka u dhashay wadankaasi Uruguay ee Luis Suarez oo markaa la sheegay in bisha January uu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaana madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barca uu dooq wanaagsan u arkaya Harry Kane inuu noqon doono bedelka Luis Suarez, maadaama la sheegay in Suarez ay macquul ay tahay inuu dib ugu laabto horyaalka Ingiriiska gaar ahaan kooxda sare ee Liverpool. sidoo kale waxaa la sheegay in Barcelona ay xoog saari doonto si ay ula xifaaltanto kooxda kubadda cagta Real Madrid oo dooq wanaagsan u aragta Harry Kane inay geyso garoonka Santiago Bernabeu. waxaana Harry Kane la siin doona lambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta Barcelona haddii marka uu aqbalo dalabka ama qorshaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona. mishiinka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Chelsea N'Golo Kante ayaana markaa cadeeyay in xiriir markaa uu la sameeyo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. wiilka kan u dhashay wadankaasi Faransiiska N'Golo Kante ayaana markaa xusay inuu aad u jecel yahay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain, waxaana uu sheegay in xiriir kala duwan uu la sameeyay madaxda kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain.
maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa arintaasi caro xoogan ka muujiyay waxaana ay doonayaan in laacibkani reer France N'Golo Kante ay ku sii hayaan gegada Stamford Bridge ayadoo loo soo bandhigayo qorshe ku aadan muddo 5 sanadood in marka uu ku sii sugnaan karo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. laacibkani N'Golo Kante ayaana markaa doonaya inuu soo gabagabeeyo waayihiisa ciyaareed ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana uu darbadiiba sheegay inuu dib ugu laaban doono horyaalka ligwanka wadanka Faransiiska gaar ahaan kooxda taageerada buuxa uu yahay ee Paris Saint-Germain. madaxda kooxda kubadda cagta PSG ayaana qorshaha ku daray N'Golo Kante inuu ka mid noqon doono ciyaartooyda dib habeenta ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain xilli ciyaareedka soo socda. ugu dambeyntiina ciiraanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa xusay in uu ku riyoonayo in Juventus uu ku dhaxarko xidigaha Marcelo, Paul Pogba iyo Toni Kroos. waxaana Cristiano Ronaldo uu xusay in kooxda kubadda cagta Juventus ay muhiim gaar ah u tahay inay ku soo guuleystaan saxiixa dalabyada ku aadan xidigaha Marcelo, Toni Kroos iyo Paul Pogba. waxaana uu arkaa saddexdaas ciyaartooy inay yihiin kuwa u horseedi kara natiijooyin kala duwan. kooxda kubadda cagta Juventusna waxa ay noqon doontaa sanadaha soo socda mid ay ku guuleysan doonto tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. awood walba ee ka hor imaada kooxda kubadda cagta Juventus ma jirto cid cilin doonto waxaana ay ku xirnaan doontaa marka hore in la xoojiyo dalabka ku aadan Marcelo, Toni Kroos iyo Paul Pogba. laacibkani Cristiano Ronaldo oo tan xilliga uu ku biiray kooxda kubadda cagta Bergamo Juventus oo aanan gool u suurtagelin ayaa rajo weyn ka leh in kooxda kubadda cagta Juventus ay markaa ku soo guuleysan doonto ciyaartooydaasi maadaama uu sheegay laacibka Cristiano Ronaldo in ciyaartooydaasi halbowlo muhiim ay u noqon doonaan kooxda kubadda cagta Bergamo Juventus. Marcelo wuxuu ku dhawaaqay wixii ka dambeeyay sanadka cusub inuu isaga soo dhaqaaqi doono kooxda Real Madrid. Toni Kroos wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda farakutiriska ee lagu tiriyay inay ka dhaqaaqi doonaan kooxda Real Madrid. Paul Pogba oo isna markaa bishii January isaga soo dhaqaaqi doonay Stadio Old Trafford. waa fursad wacan ayaa laga soo xigtay Cristiano Ronaldo. maamulka kooxda Juventus ayaana kula talinaya in arintaasi cadaadis xoogan ay saaraan maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Juventus waxay ka guuleysan doontaa dalabyada kale ciyaartooydaasi ka soo gaaraya kooxaha ka dhisan horyaalada qaaradda Yurub. waa saaxiibkeen Maxamed Ibrahim Biiba oo ku dhaafaya sidaayo nabadgelyo.